بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. maanta oo ay bisha December tahay 2018 waxaan rabnaa inaan gudbino fariin khiyaarta halkan fadhisa oo isugu jira wasiiro, xildhibaano, senataro, aqoon-yahano iyo siyaasiyiin inaan gudbino fariinta ah inaan safar u nahay dhulka dhibaatadu ka dhacday oo ku aadan Galinsoor oo ay beelaha walaalaha ay ku dirireen dhibaatada badanna ka dhacday inaan u tagno la soo wadaagno tiiraanyada iyo murugada ay u dagaalkaasi ku reebay inaan ka shaqeyno inaan dadkii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii isugu yeero si xabadda loo joojiyo dagaalku u istaago kadibna loo abuuro jawi ay dadku ku wada hadli karaan oo xal nabadeed lagu qaato. waxaan ku hormari doonaa magaalada Cadaado intayadan oo gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerku ay u soo xil saareen inay galaan nabadeynta beelaha meeshaas dhibaatadu ay ku dhex martay ayaan waqti dhow oo daqiiqada ka dhiman yihiin u duuli doonaa haddii aan la yiraahdo annagoo rajaynayna ilaahay intii ku dhimatayna u baryayna intii ku dhimatayna in ilaahay u naxariisto intii dhaawacana ilaahay bogsiiyo. socodka iyagu intaas aan sheegay uu daaran yahay. waxaan rajaynaynaa inaan waqti dhow oo degdega aan ka helno xal caafimaad deegaankaas iyo dadka degan. aad iyo aad u mahadsantihiin. waxaan ku dari lahaa dhaawacyada iyo dhibaatada kaloo jirta oo dadka hoos yaalla wixii lagala qaban karo in lagala qaban doono haddii ilaahay idmo. dhaawaca qaar waxaan xogogaal u nahay in hadda ka hor la soo duuliyey in kaloo dhimanna maanta la soo duulin doono wixii ka dambeeyana hadba intii dadaalka iyo tabartu gaari karaan aan ka qayb qaadanno caafimaadkooda iyo keenistooda goobaha caafimaadka ama magaalo madaxda ama meel kale. kulligiin waxaan idiin rajaynayaa in ilaahay guul ka keeno safarka dadkan ay u gelayaan inay ku nabadeeyaan dadka ahalka iyo dariska iyo asxaabta iyo qaraabada iyo wax walba ah oo dhibaatadaasi ay dhex martay. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu guuleeyo. arrinka galabta aan u soconno waa colaaddii ka dhacday dhinaca Galinsoor gaar ahaan ka dhacday agagaarka meesha la yidhaahdo Kaxandhaale. soo noqodkeennana insha allah waxaan ayadana geli doonaa oo aan xal ka raadin doonaa inkastoo haddaba aad loola socdo oo loo diray ciidan kala dhex gala labada beelood oo ku diriraya iyaguna xuduudka Hiiraan iyo Galguduud oo ciidanka qaranka loo diray. rajo weynna aan ka qabo xalay hadduusan gaarin kolle inuu saaka gaaray dhex fadhiyo uu meeshana u tegay inuu kala hor joogsado labadaas ciidan. iyadana haddana gacantaa lagula jiraa soo noqodka iyagana kolle intayadan in badan oo ka mid kaasna waa laga qayb qaadan doonaa waana socotaa asagana howshiisa.